الله أكبر الله أكبر الله أكبر دين وحشقاء كل يوم لماركو محيط دين تشجعيان إن شباب أسبوع عن جديد قبل كشباب هذا حلقة صاروا لقنا هرين حد يقول مدقول لابتان لقى دبل لابتو الله دين وراد عرضين وأنا قلت جينا إنا كهرين وحلي كل الواي وأباري لوضو إلهي ولا قبر يا إنه إلهي والله وش هي قطره تذكر أبار هيسي كسو الدولة الشباب halkaas waxay cadeynaysaa in diin la'aan ay yihiin qawaarijtaas dadka deegaanka ee dhulkan shabeellada dhexe ku nool waa garan karnaa halgankii ay gasheen isa iskaga saarteen adinkoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la iskaashanayo oo aad qawaarijtu 12 sano ay haysatay labadii sano iyo xoogaaga ay deegaanka ka maqnaayeen faa'iidada la helay waa qiyaasi kartaan iyo xorriyadda la helay haddana waad aragteen deegaankii bay ku soo laabteen waxay u socdaan waa naftiina maalkiina iyo guriyiina qof hadda shabaab wax ka haya miya jiro halkan fadhiyo xoolo iyo dhul iyo deegaan waxa ka haysan miya la arkaa gabdhihiina rabaan xoolihiina rabaan guriyiina rabaan de qofka islaamka aanu diisnimo laga rabo waxa la rabaa qoryaha waxa u qaadateen waqtigiina u doorateen inaad iska dhicisaan shabaabku anaga waxaan ka nimid si odayaashu sheegeen 700 kilomitir meel jirta u nimid waxa u nimid waxa waaye shabaabkii la kala gooyay ee go'doonka ahaa iyo kii koofur jiray inaysa isku xirmin arintaas marka arina wada saameynaysa waa nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu qofka muslimka haduu jirkiisa meel ka xanuunsado qof kale walaalka waa inuu jirkiisa uu xanuunsada dadka inta la eeg deegaanka inta la eeg in qawaarij looga tago sax ma aha halkan beesha fadhido iyo dadka deegaankan ku nool waxaan ka rabnaa in qawaarijta la iska celiyo diin wax shaqo ah ay ku leeyihiin lama arko waxaan u maleynaa 14 sano halkan joogeen shabaab dad dugsi u qabto quraan u dhameeyay ma aragteen culummo ay aflixiyeen oo diin bareen ma aragteen maxay tahay diinta sheegayaan horta moogta ilaa laga baqaal rabaa ya 14 sano idin la joogeen dad la leeyahay culummo waaye shabaab soo diin baray ahkaantii ay yaqaanaan shariicadii ay yaqaanaan ma aragteen kuwa dugsi u dhameeyay ma aragteen qofku waxay baraan sidoo qof u dili lahaa bas diintooda waa halkaas qof muslina in laga argagixiyo oo la dilo oo la baabi'iyo waa markaas waxay leeyihiin islaamka u shaqeynayna islaam uma shaqeeyaan magacay ku shaqeystaan magacay ku qaraabtaan waxa la rabaa inaad iska dhicisaan al-shabaab iyo shayaadiinta iyo qawaarijtaas sida ragga odayaasha hore u sheegay nabigeena kaleey salaatu salaam baa sheegay qawaarij qofkii dilana waa ahlu janna qofkii dilana waa ahlu janna nimankaas waa shayaadiin dhulka Soomaaliyeed ayaa waxa loo soo diray inay cadow gacanta u geliyaan oo dadka barakiciyaan oo jannabi iyo waxaan la aqoon iyo shaqaysanay nimankaas waxaan rabnaa dadka halkaan maanta isku yimid ilaahay baa abaarta naga saaray ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob madara uu noo keeno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado cadowgaas adinkana inaad sugnaataan oo aad iska dhicisaan oo godadka u gashaan